dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dagaal beeleed ka socda degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kaasoo galay maalinkii afraad halkaasina beelo walaalaha ay isku dagaalayaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaana waxa ay ka soo saartay dagaalkaasi baaq degdeg ah iyadoona maleeshiyaadka colaadaasi ku lugta leh ay ugu baaqday nabad iyo xasilooni. Wasaaradda Arrimaha Gudaha dib u heshiisiinta federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale fartay hay'adaha amniga inay ka shaqeeyaan daminta xiisadda ilaalinta shacabka. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu yiri waxay si dhow ula socotaa kana muujinaysaa walaac iyo murugo qoto dheer colaadda iyo beegsiga ka baxsan shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed taasi oo sababay khasaare naf iyo maalba leh oo labadii maalmood u dambeeyay dhex maray beelo walaalo ah oo degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri wasaaraddu waxay ku baaqaysaa in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadda iyo falalka beegsiga ee sababay dhimasho, dhaawac, gubid, dhac hantideed iyo sidoo kale barakac baahsan oo soo gaaray shacabka deegaanka. waxaa tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayaa dadka baraha bulshada ku faafinaya falalka foosha xun ee kicinta iyo isku dirka bulshada xambaarsan. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka, dhalinyarada, waxgaradka deegaanka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle inay door muuqda ka qaataan joojinta colaadda, adkeynta nabadda, xoojinta wada noolaanshaha bulshada iyo ka shaqeynta xal waara oo lagu soo afjaro khilaafaadka jira. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay wasaaraddu waxay Alle subxaanahu wa tacaala ugu baryaysaa inuu naxariista janno ka waraabiyo dhammaan intii ku geeriyootay dhacdooyinkan murugada leh, dhaawacyadana u boogadhayo shacabku dhibaatada ay saameeyeenna ka dulqaado xaaladaha adag ay wajahayaan. dagaal beeleedkan u dhexeeya beelaha walaalaha ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu socdaa maalinkii afraad iyadoona halkaasi ay ku dagaalamayaan laba beel oo halkaasi wada degaan. ilaa weli ma jirto cid ka dhex gasha balse dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale maamulka Hirshabelle ayaa waxay arrintaasi ay war ka soo saareen iyadoona labada dhinac halkaasi ku dagaalamaya ay u direen baaqiyo kala duwan.